kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka nabaad oo haadaan oo kale aad ka daawataan telefishinka astaan xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho. barnaamij maanta dee abaawti ogolaad waxaa martii waa agaasimaha macadka cimilada iyo deegaanka ee jaamacadda simad maxamed cukaashe sugow. ciwaanka barnaamijkan wuxuu noqon doonaa dee abaawti la ogolaado la tacaalidda isbeddelka cimilada ee Soomaaliya ama yareynta isbeddelka cimilada ee Soomaaliya. mudane cukaashe kusoo dhawow telefishinka astaan gaar ahaan barnaamijka nabad. waa maasanta Cabdiqaadir, waan ku faraxsanahay inaan maanta halkaan idinla joogo. dabcan ciwaankeenu aan dooranay ee barnaamijka maanta aynu ku faaqiidi doonaa haddii aabaha awoodsi la ogolaado waa yareynta ama la tacaalidda isbeddelka cimilada ee Soomaaliya. dabcan adiguna waxaa tahay qof ku magacaaban macad u gaar ah deegaanka iyo cimilada. bal waxaan rabaa marka hore inaan ku weydiiyo waxaad noogu warantaa saameynta uu isbeddelka cimilada ku yeeshay dalkeena Soomaaliya. Cabdiqaadir, waa maasan tahay. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka soo koraya adduunyadu ka tirsan oo aad u saameeya isbeddelka cimilada. marka la hadlayo conceptii guud ahaan climate change waa mushkilo adduunka dhan saameysay, laakiin saameyntu waa lagu kala duwan yahay. sida u saameynaysa dalalka horumaray iyo dalalka soo kobcaya aad ay kala duwan yihiin. Soomaaliya waxay ka mid tahay marka dalalka aad faqriga ugu jiro oo khatar weynna ku ah isbeddelka cimilada. waxaa la socotaa inay dal Soomaaliya aad u saameeyaan abaaro soo lalaabto, roob yari, xaalufin dhir ay ka jirto, daadad inay jiraan oo beerihii iyo dadkiiba barakiciya ama baabi'iya. mar qaarkood waxaa dhaca dabaylo xoogan oo cyclones oo baabi'iyo deegaano badan. waxaa kaloo jirta meelo qaarkood oo carooyin magaalo dhan aasmaya, carooyin aasaya, meelo qaarkood badiya yani levelka sare u kac ku yimid. marka waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin mashaakilka isbeddelka cimilada. Soomaaliya saa kuu sheeg waxay ka mid tahay dalalka aad u saameeya isbeddelkaas. waxaa taas usii dheer, Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka marka loo fiiriyo Global Climate Action Index-ka dalalka aan u diyaarsanayn in la qabsadaan adaptation la sameeyaan xaaladahaas isbeddelka. uma diyaarsana capacity-gan Soomaaliya ma lahan. marka taas waxay Soomaaliya ka dhigaysaa dal marka aad vulnerable u ah ama aad ugu jilicsan, ugu nugul in mashaakilkaas isbeddelka cimilada uu saameeyo, taasoo saameyn ku leh jiritaanka nolosha. in dadka insaanka ku noolaadaan Soomaaliya khatar badan ee kala kulmi karaan, sidoo kale noolayaasha kalena inay Soomaaliya noloshooda baaqi ku aatan khatar badan kula kulmi karaan. marka taas waa xaalad oo khatar ku ah weliba jiritaanka dal ahaan iyo ummad ahaan oo geeskan qaaradda Afrika ku nool nahay weliba halis weyn gelin karta. markii loo fiiriyo dalal badan waxaa jira isku duruufo aan nahay, isku horumarka level ahaan oo isku mid ah ka nahay. dalalka tusaale ahaan dariskana oo kale Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti isku category ku jirnaa marka loo fiiriyo horumarka dhaqaalaha. marka loo fiiriyo inkastoo marka qaarkood meel qaarkood inay u fiican ay jiraan, haddana markii loo fiiriyo khataraha isbeddelka cimilada anaga ugu nugul, lana iyaga waxay haystaan dowlado shaqeynaya oo weligood jiray, systems jira. sidoo kale waxaa u fudud inay adaptation la sameeyaan, la qabsadaan isbeddelka cimilada, inay maalgelin ku sameeyaan beerashada, biyaha si loo maamulo iyo wixii lamid ah. halka anaga aan waxaasoo dhan aan haysanin oo fasiilaadkaas aan haysanin, aan u diyaarsanayn tan kale aqoonteeda iyo khibraddeeda aanan lahayn. marka Soomaaliya taas waxay ka dhigtay dal aad ugu nugul isbeddelka cimilada. waa hagaag. dabcan sidaad soo sheegto waa u nugulnahay isbeddelka cimilada marka loo fiiriyo dowladaha kale kuwa dariska iyo kuwa naga fogba. iyadoo tiyo jirta sideen bulshadu ugu sharxi karnaa in isbeddelka cimiladu ay sababaan aadanuhu ama aadanuhu inuu sababa isbeddelka cimilada. waa su-aal fiican. marar badan marka dad badan la kulmo aan ugu sheekay isbeddelka cimilada iyo shaqadayda, dadku waxay isweydiiyaan Soomaaliya maxaa ka galay isbeddelka cimilada. waxay u maleeyaan mar qaarkood climate change area markay maqlaan inuu yahay mustalax ajnabi wata oo foreign driven inuu yahay. laakiin markaa weydiisto abaar yani qoyskiina ama ehelkiina ma saameeyay, dad abaar soo barkacay ma aragtay, waxay ku leeyihin haa. farqi u dhexeeya waxaa waaye dadku badankood uma maleeyaan mashaakilka ay arkaan inuu isbeddel cimilada. waxay u maleeyaan wax iska rabaaniya oo iska dhacay. laakiin markii taariikh dib loo fiiriyo mushkiladahaas oo dhan haysta waxaa asal u ah human activities, insaankaas sabab u ahaa. for example waxyaabaha isbeddelka cimilada waxaa ka mid ah qiica hawada lagu sii daayo oo yani fossil fuels, shidaalka la gubo, warshadaha loo isticmaalaa, transportationka loo isticmaalaa, beeraha loo isticmaalaa, dhismaha loo isticmaalaa. waxaasi markii qarnigii 18 heerka yani warshadaha adduunka uu marayay maanta marka loo fiiriyo toddoba yani soo maray isbeddel weyn oo soo maray.
qiica hawada lagu sii daynaya qarnigii 18aad maanta uu ka badan yahay kan lagu sii daynaya qarnigii 1aad aad joogno waxaasna marka insaanka sabab waa insaanka especially dalalka horumaray ayaa sabab waa dalalkaas horumaray waxay ka faa'iidaysteen kheyraadka haysteen aqoontii haysteen kacaanka warshadaha ayaa iyaga sabab u ah asal u ah therefore marka horumarka dhaqaale ay gaareen waxa asal ah marka kacaanka warshadaha la jaan qaadeen asal u ah qiicaas marka hawada lagu sii daayo ama greenhouse gas emissions hawada lagu sii daayo oo carbon iyo methane iyo ay ka mid yihiin wuxuu sababay marka in hawadii ay wasaqowdo wasaqowga hawada wuxuu sababay marka inuu ku laalo global warming meelaha qaarkood lagu noolaanka kuleel dartiisa hadda aan joogno July meelaha qaarkood Asia Europe ka tirsan tahay dad waxay dhimanayaan kuleel dartiisa dad ku dhimanayaan meelaha qaarkood waxaa dhacay in levelkii badda sar u kacdo magaalooyinka qaarkood ay aasmeen wadamada Caribbeanska barafku dhal waxaa sababay kuleelkii yani asabay barafka Mount Kilimanjaro iyo Mount Kenya meelaha waxa kamid tahay glaciers Africa ku yaalo heerka ku dhalaalaya aad u sii badanaya san sii dambeys waxaana sababay kuleelkaas sababay yani hawada ay wasaqaysan sababay dood waxa dhalan karta wasaqowgaas yaa sababay yes waxa sababay dalalka horumaraa sababay dalalka G20 la isku dhacsalahan ama G7 oo boqolkiiba in ka badan 60 dhaqaalaha adduunka iyaga maamulo iyaga sameeya dalalka anaga ka tirsanaa oo dalalka LDCs ama least developing countries oo tacbaanka warshado badan lahayn dhaqaalada aad u xoognayn waxay kaliya doorka ku leeyihiin aad u yar yahay marka for example Soomaaliya oo kale waxa la 0.03% way wasaqowga hawada sidayaan wasaqowgaasna u badan gaari la wada iyo dhismo la sameeyo waxaas ay ka imaadaan meel u badan iyo beere ka imaadaan warshado badan ma leeyihiin marka inequality adduun ka jiro ayaa sabab u ah marka inequality hata wuxuu gaaray not only dhaqaale haysta maahan wuxuu gaaray dhibaatada ka dhalanaysa bay'ada isbedelkeeda ama isbedelka cimilada in xataa lagu kala duwanaado marka waxaa la sameeyey adduunka mar isku yimaada waxaa jira loo yaqaan COP Conference of Parties dowladaha adduunka dhan isku yimaada waxaa laga hadlaa mashaakil caalami ah mashaakil dalalku si gaar u la tacaali karaan ma ahan waxa Soomaaliya kaliya la tacaali karta ma ahan maadaama hal meer aan ku nool nahay waxa u baahannahay si wada jir in loo xaleeyo marka madashaas UN maamusho sanad kasta la isku yimaado sanadkii hore COP27 shirkiisa 20aad oo Masar ka dhacay waxyaabaha ka soo baxay waxaa kamid ah oo guul ah waxa loo yaqaan loss and damage fund waa lacag magdhow oo kale ah oo laga soo qaadayo dalalka horumaray oo hawada wasaqeeya oo qiic ku sii daaya lacagtaas oo la siinayo dalalka dhaqaalahan aad u liita oo saameeya isbedelka cimilada for example Soomaaliya oo kale abaara ka dhacday ama daadada ka dhaceen ma haysato Soomaaliya lacag ee waxaas yani ku maamusho awood dhaqaale ma haysato dalalkii marka guud ahaan adduunka inuu saas dhibaatooyinkaas ka dhacaan sabab u ahaa waa inay lacag siiyaan yani dalkaas kale ay ku maalgelinayaan mashaariic horumarineed ama climate adaptation waxa loo yaqaan sidee dalkan ula qabsanti karaa ula tacaali karaa isbedelka cimilada for example wadooyinka dhisayno inuu qabo wadooyin u dulqaadan kara haddii daalad yimaadaan haddii kuleelka u ziyaado oo kale wadda aan burburaynin ama yani cimrigeeda uusan soo gaabsamayn u noqda waxaa kaloo lagu maalgelin karaa sidee qaab beerashad cusub loo sameyn karaa sidee wax cusub u beeran karaa qaab cusub yani new ways of farming haddii roobka uu yaryahay oo kale roobka hadduu baaqdo 4 mar u baaqdo Soomaaliya roobkii beeraleyda roob ma haysan dalagii hoos u dhaca ku yimid sidee waxaas loo xalin karaa marka lacagahaas waxaa lagu maalgelinaa mashaariic horumarineed oo dadka nugulka aad u saameynaysa dadkaasna waa dadka miyiga jooga waay dadkii wax soo saarka asalka lahaa beeraha dhaqanaya xoolaha lahaa kalluumaysatadii waa iyaga dadku aad u saameynaya marka lacagahaas loo tugo inkastoo hadda aysan cadeen lacag tireeda si loo bixin doono laakiin in general principle waxaa la isku waafaqay in lacagaas la siido okay marka maadaama dhibaatooyinkaas aad sheegtay uu sababay isbedelka cimiladu bini aadamkuna ay gacmahoodii ku sababeen ha sameeyeen warshado iyo qiiq hawada ku sii deeyeen haddaba bulshadu maxaan u sheegi karnaa si loo joojiyo isbedelka cimilada maxay bulshadu sameyn kartaa maasanta su'aal fiican waxaa rabaa inaan u laabto qaybtii su'aashii hore sidee Soomaalida marka qayb ugu qaataan isbedelka cimilada tii hore waa tii adduunka u ahaa 4 shay u muhiimsan marka laga hadlayo isbedelka cimilada sida Soomaaliya factors shape gareey Soomaaliya isbedelka cimilada laga hadlayo waxaa kamid ah isbedelka cimilada naftigiisa climate change waxaa kaloo kamid ah waxa loo yaqaano land degradation isticmaalka qaabka ugu faa'iideysan dhulka aanan ku dhisnayn qaab waara aan ahayn qaab u fiican environment for example dhir banaan jarnaa
xaddiga dhir laga jaro Soomaaliya aad u fara badan yahay lama controlo sharci yani bangareena ma laha hadda u baxay magaalada banaanka waxa arkaysaa baabuur tiro badan dhuxul ka soo gelinaya magaalada ama qoryo soo gelinaya waxaasi dhul beeraha laga soo jaray ama dhir oo si un yani noolayaal kale u noolaayeen u faa'iideysan lahaayeen oo lasoo baabi'i waayo xaddigaas xawligaas ku socoto waxaas waxay xiriir leedahay roobka aan helin oo yaraado meesha haddii dhir jirin yani carada waxay u baahan tahay in la haayo aysan bidin magaalooyin kale aysan aasina loo baahan marka inuu dhir meesha ku taala sidoo kale si roob u helin inuu jiro deegaanka inuu deegaan cagaar yahay oo soo jiidan kara roobka haddii aad fiirisid roobka ka da'a Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya haddaad fiirisid waan ka yarnahay roobka aan helno mar badan waxaa sababay oo juqraafiga meesha ku yaalaan iyo marka laga yimaado waxaa sababay dhirta sababay dhirta aad loo jaro marka xaalufin aad u baana jirto dadku ay sameeyaan waxaasoo marka waxay khatar weyn ku tahay marka jiritaanka nololeed deegaanka Soomaaliya khatar weyn ku tahay waxaa kaloo ka mid ah biyaha sida u faa'iideysano biyaha ma keedino laba isu jiraan biyaha dhulka dushiisa saaran iyo kuwa gudaha ku jiraba labadu marka si wanaagsan oo sustainable laguma faa'iideysto yani biyahaas waa la keedin karaa deegaanka qaab wanaagsan loo isticmaali karaa beeraha loo isticmaali karaa laguma faa'iideysto marka isticmaal daradaas waxay sababaya marka dadka baahi badan inay abuuranto oo dadku u dhintaan biyo la'aan ama beerihii aan loo isticmaali karin lagu faa'iideysan karin biyo la'aan sababi karta marka iyo dhaqamadii waxaa plastic pollutions oo kale waxaa wasakhda oo kale magaalooyinka aad loo isticmaalo xoolihi yani cunaan bacay cunaan caagaday cunaan xeebiyaha lagu shubaa badiyaa lagu shubaa kalluunka aan cunayn marka waxaa inuu yahay kalluun polluted ah oo wasakhaysan oo caag cunaa laga yaabaa caafimaadku halis ku yahay marka waxaa soo halis ku yahay tirada yani taranka kalluunka xataa baddi saameyn ku leeyahay xoolihii si lamid saas si lamid ah waxaasoo dhan marka waa web isku xiran oo dhammaantood is saameyn waxayna ka bilaabanaa qofka fardiga ficil uu sameeyo marka haddaan ka fikirin ficilada aan sameynayno iyo qaab nololeedkeena haddaan ka fikirin is weydiinin ma yahay wax u wanaagsan bay'ada ma yahay wax u fiican dhulka wax nolosheena maanta iyo midda beri u fiican haddaan is weydiinin waxaan halis ugu jirnaa marka qaab nololeedkeena oo aan taas ku dhisnayn in wax badan yani environment u halaabo wasaqoobo u noqdo meel aan lagu noolaan karin u noqdo marka haddii dalkaaga ama magaalada ama deegaanka u noqdo meel aan lagu noolaan karinna dhibaatada ay leedahay hadduu aragtay documentary astaan soo saartay oo ahaa dhinawda yani magaalo dhan aasantay oo geed aan ku oolin oo yani biyo aan lahayn oo dadka nolol aysan ka jirin haddii saas si lamada deegaan kasta ay noqdaan ka hor waa dhibaatada ay leedahay dad badana magaalada ku nool xamar oo barakacayaal ah dadkaas asalkooda beeray lahaayeen xoolay lahaayeen way ka soo barkaceen deegaanada ay joogeen iyo qoyska ay noolaayeen magaalooyinka ay joogaan taas micnaheedu waxaa waye ilbaxnimo baaba'aysa wax soo saara baaba'ay nolol jirtay oo taariikh ku dhisneed hoos soo dhacaysa yani soo gaabsamay marka haddii yani hal milyan ama oo beer oo la beerin jiray for example oo guud ahaan dalka hoos u dhac ku yimid ama la joojiyay beerashada for the last 10 years oo kale 10 sano u dambeysay waxay saameyn toos ku leedahay cuntada cunayno oo local la soo saari lahayn saameyn ku leedahay dhaqaalihii dalkan u heli lahayn saameyn yani ku yeelanaya marka waxaa u baahan nahay aad ugu fikirno waxyaaba aan sameynayno shakhsi ahaan qoys ahaan iyo institutions ahaan mihi wax wanaagsan deegaanka oo kale for example hadda meeshan waxaa ka daaran nalaa ka daaran waxaa la isticmaalaa koronta la isticmaalaa korontaas ma tahay mid environment u wanaagsan mid yahay mid renewable energy miya mid shidaal maa la isticmaalaa wax la mid ah marka small thingskas haddaan si wanaagsan ugu fikirno dadkan la baro oo shaqada ahayna ka mid tahay dadkan la baro la wacyigeliyana yani nolosheena waxay noqonaysaa nolol sustainable ah oo waarta oo deegaanka u wanaagsan mustaqbalka u wanaagsan tan maanta jirtin u wanaagsan ay noqonaysaa waa hagaag daawadayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaanu maraynaa maxamed cukaasho oo agaasimaha deegaanka iyo cimilada ee jaamacadda simad ayaa marti ugu ah ciwaankuna waa la tacaalidda ama yareynta isbedelka cimilada ee Soomaaliya agaasime waxa aad agaasime ka tahay mid ka mid ah aan ilaahdee macadka deegaanka iyo cimilada ee jaamacadda simad waxaad gaar u tihiin cimilada isbedelkeeda iyo deegaanka ma jiraan daraasado aad ka samayseen saameynta isbedelka cimilada uu ku yeesho Soomaaliya maxaa sidii soo baxay وسؤال فعلا طبعا ها جامعة سيمت طبعا waxay ka tirsan jaamacada waaweyn dalkan
wax kastoo lagu bartay shaqo kastoo ay haystana waxay jawaab u ahayd mushkilada Soomaaliya ka jirta. Maanta waayahan dambe waxaa aad soo badanayay khatarta isbeddelka cimilada Soomaaliya ku leedahay. Saala ajligeed jaamacadda Soomaaliya waxay ka fikirtay marka sidee qayb uga qaadan karnaa la tacaalida arrinkaas. Waxaan furnay macad la yaqaan Institute of Climate and Environment oo macadka deegaanka cimilada. Macadka shaqadiisa waxay tahay marka wuxuu soo saaraa daraasado cilmi baariso dadku tababaraa dowladdu kula taliyaa siyaasado hufan yani in la dhaqangeliyo oo wanaagsan beecada iyo deegaanka. Hadda kula hadlay waxaa socda mashaariic cilmi baarisyo. Cilmi baarisyadu waxay soo jiraan kuwa sidee loo ogaadaa loo baaraa ama intuu la egyahay isbeddelka cimilada Soomaaliya in la effectiga yani intuu gaarsiisan yahay yani in terms of dhaqaalaha siduu u saameeyey wax soo saarka beeraha siduu u saameeyey wax la mid ah. Waxaa kaloo daraasadaheen ay ku wajahaan sidee Soomaaliya ula falgali kartaa adaptation wax loo yaqaan sidee Soomaaliya yani ula qabsan kartaa isbeddelkaas cimilada. Ilaan Soomaaliya lagama guuri karo meero kale la aadayo malaha dal kale la aadayo malaha dalkan oo dalkii Soomaaliya dadku marka ku nool sidee dalkooda iyagoo jooga duruufahana jira ula falgali karaan. Marka daraasado ku saabsan noocaasna way jiraan. Daraasadahaas markaan dabcan inkastoo aad ku yihiin wax badan ku wada socda yihiin waxaa hadda daraasad noo soo dhamaatay jirta ku saabsan isbeddelka cimilada iyo conflicts sidee isu saameynayaan. Meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa biyo yari inay ka jiraan oo daaqsinka yaraado dadka deegaanka meelaha dagaal yani ma jira conflictiga oo qabaa'ilo يعني ma sababa isbeddelka cimilada. Marka daraasad noocaas jirta oo socoto oo dhawaan aan soo bandhigi doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka howlahan wax u badan waxaa daraasado aan soo bandhigno aan samayno guud ahaan dalka dhan aan ka samayno iyo sidoo kale tababaro iyo programs dadka wacigooda sare loo qaadayo inaan samayno anigoo isticmaalayna social media iyo traditional mediaba. waa hagaag agasime ma jiraan talooyin aad siisaan dowladda gaar ahaan wasaaradda ku shaqada leh iyo bulshada Soomaaliyeedba si loo yareeyo isbeddelka cimilada ama guud ahaanba wax la taaban kara laga gaara la dagaalankiisa? waa su'aal fiican. Yes ha mid ka mid ah arkaanta shaqadeena ka mid tahayba inaan la talino not only dowlad kaliya ma ahana dadka oo dhan bulshada ganacsatada qofka caadiga oo shakhsiga ah iyo hay'adaha oo dhan maxaa la samayn karaa sidee loo xalin karaa mushkiladan. Waxaan dhawaan soo saari doonaa policy brief ka hadli doona maamulka deegaanka iyo mashaariic la xiriir isbeddelka cimilada Soomaaliya. Dowladduna dabcan talooyin si toos sida bond waan la wadaagnaa maxaa la samayn karaa maxaa yani xal ah oo dadkan u baahan yihiin anagoo ku base garayno evidence based wax cilmi baaris ku dhisan oo dowladda u marinayno. Siyaabaha u samayn waxaa ka mid ah inaan ku casuuno programskeena eventskeena iyo bandhigyadeena cilmi baarisyada iyo reportka aan soo bandhigayno aan ka talagelino intaan la daabacin sidoo kalena si toosna aan halkan u marno. Waxaa hadda halkan u fadhino oo kale waxaa ka mid ah mid ka mid ah qaab ka mid waaye sidaan u challenge garaynayno ama talo ama ra'yi aan la wadaagayno dowladda cid kasta oo quseysaba. Marka dadka aan la shaqeyno dadkaas oo dhan isu jiraan waxaa laakiin aad aan xoog saarna dadka community-ga bulshada in xoog yani ula shaqeeyo because waa iyagii dadkii ficilada sameyn lahaa dadkii u baahan wax laga bedelo qaab nololeedkooda si beecada loo ilaaliyo. Marka isbeddelka cimilada marka la tacaalayo la tacaalida heerar kala duwan ay leedahay. Si shakhsi ah qaab loo tacaali kartaa qoys ahaanna si loo tacaali kartaa bulsho ahaanna si loo tacaali kartaa kadibna dowlad iyo heer qaran waxbaa laga dowladdu marka doorkeeda u muhiimsan waxaa waaye inay sameyso siyaasadihii loo ilaalin lahaa beecada oo kale. Tusaale wax hadda dhawaan aan rajeynayna in la sameeyo qorshihii national adaptation plan ka socda sidee Soomaaliya ula falgali kartaa isbeddelka cimilada. Marka waa inuu ku jiro qorshe qaran oo qeexaya oo biyaha ka hadlaya beerashada kale xoolihii ka hadlaya dhinac kasta ka hadlaya sidee Soomaaliya ula falgali maxaa la sameynaya. waxaa hadda aan rajeynaya inuu socdo qorshihiisa sameysanka hay'adda maareynta beecada ama environment authority-ga oo sharciyo soo saari lahayd sharciyada jiran ku control lahayd in la fuliyo yani dhirta inaan la jarin hay'adii control lahayd waxyaabaha soo galaya badeecada dalkan imaanaya ma yihiin kuwa beecada u fiican ama kuwa khatar ku ah hay'adii control lahayd. Marka waxyaabahaas iyo kuwa kala tir badan ka mid ah aan dowladda iyo dadka la wadaagnaba.
وهيك طبعا قيبي ودا بيان برنامج كان markaan isla soo gaarnay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa tahay agaasimaha macadka deegaanka muddo waad ku soo shaqaynaysa xilkan waad haysa xaalka la dagaalanka isbedelka cimilada ama yareyntiisaba ee Soomaaliya wuxuu u muuqdaa si gaabis ah bal maxaa ku muuqda haddii ay umuuro sidan kusii socdaan waa su-aal fiican waxaa jira wax loo yaqaano national determinant contribution waa dukumenti ku qoran yihiin sidee Soomaaliya ula tacaalaysa isbedelka cimilada wuxuuna ka mid ahaa waxyaabihii ka soo baxay in dowladaha ay sameeyeen tahay heshiiskii Paris 2015 Soomaaliya marka 2021 kii u dambeeyay soo saartay waxa ku qoran maxaa la sameeynaa sidee loo sameeynaa maxaa lacag ku baxay the good thing wax kastoo la sameyn lahaa iyo mashaakilka siduu yahay in badan ka mid ah faham guud baa laga haystaa kaliya waxaa naga maqan ficilkii in tallaabo la qaadaa ka maqan documentis waxa ku qoran for example Soomaaliya inay u baahan tahay $50 bilyan u baahan tahay 10 sano soo socoto $50 bilyan u baahan tahay marka 2021 ilaa 2030 waa 10 sano gudahood waaye lacagtaas hadda lama geliyo Soomaaliya miisaaniyadda dhan waxay ka yar tahay $1 bilyan $1 bilyan $1 bilyan ka yar tahay lacagahaasna lacaga oo badankoodna kuwa inta hadda haysan lacag Soomaaliyeed ma badankood ma marka lacagaha see loo keeni karaa sida climate finance-ga mechanism adduunyada ka jira sida Soomaaliya uga falgali kartaa lacag loogu keeni dadka loo maalgelin marka gaabis wuxuu ku jiraa fulinta yani mashaariicdaas sababtuna waxa dhaqaale dari waayo marka in taa la xaliya ayaa u baahan shaqo aad u badan u baahan waaye dowlad kaliya u baahan in ka shaqeyso private in ka shaqeyno u baahan yahay oo private finance in la keeno public finance in la keeno la baatan yani si on sanduuq loo sameeyo iyo anything else kale oo fududeyn kara in lacagaas la helo sidoo kale la maalgeliyo waa qabaa mustaqbalka yani mashaakilkan ma xalin karaa yes waa la xalin karaa dal ahaan yani shaqo fiican ka qaban karnaa adduunyadana sidoo kalena rabitaanka adduunyadana in shaqo watana yani rajo fiican ka leeyahay laakiin waxa asalka waxa waaye heshiisyada lagu heshiiyo iyo go'aanada jira iyo qorshayaasha alleenahay fulintooda in laga shaqeeyo fulintooda marka dadka dhan ay qayb ka yihiin annaga kan simad ahaana doorkaana ciyaarona dadka inaan wacigooda sar u qaadano ka hadalno dadka barano idinku tusaalaha astaan oo kale dadkii sidoo kale awareness-ka sar u qaadaysiin marka qolo kastoo ka tirsan bulshada haddii doorkeeda ay garowsato ay qaadatona wax badanna xalismaayo marka yani jawaabta koon waxaa waaye yes waa la xalin karaa rajo waa fiican tahay laakiin shaqo badan u baahan in la qabto oo ficil ah oo nusiima la qabto ay tahay haddii taa yani lasoo howlana I think mushkiladaas waa xalin karnaa waa hagaag waxaan rabaa waxaad hor fariisaa bulsho weyn ku daawan doonto ku daawanaysa waxaa ka mid ah ganacsatada soo dejida balastiga waxaa ka mid ah kuwa geedaha jira nooc kasta qof kasta oo bulshada ka mid ah ama si dadban ama si toos ah baa ugu lug lahaadee ee sababa isbedelka cimilada maxaa tala ah oo aad sii lahayd waa su-aal fiican dabcan mushkiladan isbedelka cimilada waa mashaakil dadka o dhan saameyn qof ka baaqsan kara ama ka gaban kara malahan si unba qofku saameynaysaa marka ganacsiga iyo qaab nololeedka journal dhan wuxuu u baahan yahay in dib looga fikiro rethinking qaabka u nool lahay ama wax u sameyno ganacsatada kaliya maahan dadka caadiga oo xitaa consumerska xitaa naftirkeena waxaa u baahannahay inaan ka fikirno waxyaabahan ka ganacsanayno ama soo iibsanayno ma yihiin wax bey'ada u wanaagsan ma yihiin su-aalahaas inaan isweydiina u baahan kadibna go-aanada aan gaarayno ay ku saleysnaadaan go-aano u wanaagsan bey'ada u wanaagsan ganacsiga iyadoo aan laga guureynin waxaa la sameyn karaa in noqdo ganacsi yani u wanaagsan bey'ada u wanaagsan for example dhulka markii la dhisayo interlog oo kale la sameynayo waxaa jira kuwa laga sameeya waxyaabaha haraadiga qashinka laga sameeya jira oo recycles laga sameeya jiri kara plastics isticmaali karno waxaa yareyn karnaa plastic one time-ka oo hal mar dil isticmaalo dib aan loo isticmaali karin bacda iyo strowga ka mid ah waxaan ku bedeli karnaa kuwa u wanaagsan bey'ada oo warqada laga sameeya bacaha waxaan ku bedeli karnaa salado yani isla ganacsi iyadoo laga bixaynin alternative bisa la awoodi karaa badiil ala sameyn karaa keliya sidoo kale waa in ganacsatada iyo dowladdu waa shaqeeyaan sidee loo yareeyaa waxyaaba qaarkood oo aan bey'ada aan u wanaagsan oo dalkan la keenayo sidoo kalena inay ganacsatadu ka fikiraan sidee maalgelinta ay sameynayaan
u waciyaan wax environment u wanaagsan. Marka adduunka oo dhan discussionkaas iyo shiftigaas uu ku jiraa, wax Soomaaliya iyo dalalka Korea u gaaray ma ahan. I think marka isbedelkaas isama adduunyada wana saameynaysa si inoo saameynaysa. Marka maanta bilowta inaan maanta ka fikirno in fikirkeena bedelno, waxyaabaha maalgelin in wax badan ka bedelo, waxyaabaha isticmaalayna sidoo kale aan ka fiirsan inay yihiin wax u fiican, bay'ad u fiican. waa hagaag daawadayaal guud ahaan waxaa intaas inooga eg barnaamijka nabaad ee aad ka daawanayseen telefishinka astaan. barnaamijka maanta waxaa martay wahaa ustaad maxamed cukaashe sugow oo ah agaasimaha deegaanka iyo cimilada ee jaamacadda simad. barnaamijka ciwaankiisuna waxa uu ahaa la tacaalidda ama yareynta isbedelka cimilada ee Soomaaliya tan iyo inta aynu kulmi doono mid ka mid lamida sida iyo amaan Allah.